بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استاذ جوجتان با الله أود لا دمانته وحنا كودا برينا إنه نجودا بدباديو عذر كاسف مرينكا كورونا فيروس كي عذر كلابا مالنا قميص طبعا كابشة ديسمبر لبضل كون يلباتن كا cudurka coronavirus-ka oo ka jiray meelo badan oo dunida ka mid ah ayaa waxa isu soo taraya tallaalada meelaha qaar lagu bilaabay meelaha qaarna ogolaanshahoodiiba la gaaray iyadoo weliba la filayo maalmaha soo socdana wadamo badan oo dunida ahi inay markaasi ay aqoonsadaan tallaalka inuu waxtar leeyahay oo uu fiican yahay si markaas loogu bilaabo oo loo geeyo goobo kala duwan waddanka Canada oo kamid ah dalalka ku yaala waqooyiga Amerika ayaa waxa uu yahay waddankii labaad ee ogolaaday marka la fiiriyo tallaalada dhinaca Pfizer iyo BioNTech arrintaas ayaa waxa shalay ka dhawaajiyay xukuumadda uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Justin Pierre Trudeau ee magaalada Ottawa waxay sheegeen Canadiyaanku inay hubiyeen fiiriyeen ka baaraandegeen eegeen tallaalkan waxtarkiisa iyo weliba dhinaca ammaankiisa taasina ay noqotay inay noqdaan inay go'aankaasi qaataan oo markaasi ay dalbadaan ayna iibsadaan dowsas aad u fara badan oo malaayiinta reer Canada markaasi lagu tallaalayo Canada waxa ay filaysaa maalmaha soo socda in loo keeno ilaa iyo 249,000 oo doos iyadoo kadibna ay sheegeen inay dalbadeen ilaa iyo 20 milyan oo doos taasoo ka dhigan 10 milyan oo Canadian markaa in lagu tallaali doono warbixin ay soo saartay qaybta caafimaadka ee dalka Canada waxay kaloo ay ku sheegtay in ilaa iyo 56 milyan oo doos oo kalena la dalbanayo taas oo loo arkay in tirada Canada ay dalbanayso marka dadkeeda loo fiiriyo shan jibaar ay ka badan tahay waxayna qiil uga dhigeen qof kasta oo Canadian inuu xaq u leeyahay inuu tallaal buuxa helo si markaas cudurka looga fogaado waddanka Canada waxa uu kamid yahay wadamada saameynta cudurka uu ku yeeshay laakiin sida ba'an aanu u aafaynin marka la fiiriyo wadamada deriska la ah sida waddanka Mareykanka iyo weliba dalka Mexico marka hadaba la fiiriyo gobolada kala duwan ee dalka Canada ayaa waxa ugu daraa gobolka lagu magacaabo Manitoba oo la sheegay dadka ku dhimanaya iyo dadka uu soo ridanayay inay 3 jibaar 4 jibaar ku ahayeen marka la barbar dhigo gobolada kale ee waddanka markaasi Canada ninka isaga lagu magacaabo Doug Ford oo ah ninka isagu primarka ama gudoomiyaha ka ah gobolka Ontario oo ah gobolka ugu ballaaran dalka Canada ayaa waxa uu qoraal uu soo saaray uu ku sheegay inay si aad u soo dhaweynayaan tallaalkan ogolaashihiisa haddii ay yihiin reer Ontario oo dhan mar alla marka uu ciidda Ontario soo galana buu yiri in lagu bilaabi doono dadka reer Ontario si markaasi cudurka looga badbaado waddanka Canada ayaa waxa uu noqonayaa dalka labaad ee adduunyada ee markaa isagu ogolaaday ogolaashihiisa uu ku baagmay maalintii labaad oo UK ay wado tallaalida dadka ay tallaalayso UK-na ay ahayd dalkii ugu horeeyay ee adduunka ee Pfizer iyo BioNTech iyagu qalinka ku duugay inay tahay markaasi tallaal waxtar leh oo ammaan ah oo markaas la qaadan karayo UK marka la fiiriyo waa waddanka sidaanu hore u sheegnaba ah dalkii koobaad ee isagu ogolaanshaha bixiyay dhinaca kalena talaadadii 8 bisha ayagu ku bilaabay guud ahaanba UK oo dhan talaalka iyadoo haweeneydii ugu horeysay lagu talaala ay ahayd haweeneyda ayeeyada ama maciida ama abootada ee lagu magacaabo Margaret Cannon oo 91 jir noqonaysa toddobaadka soo socda tallaalka oo haddaba lagu bilaabay qoliyaha caafimaadka ayaa warbixintii u dambeysay dhinaca caafimaadka UK waxay sheegtay in kohsiga ama allergiga waxa loo yaqaano laga arkay laba ruux oo ka tirsan shaqaalaha caafimaadka taasina ay keentay markiiba in laga joojiyay iyadoo go'aan lagu gaaray dadka iyagu allergiga xoog la qaba ama korkooda uu kohsado marka la fiiriyo xagga cunooyinka iyo daawada iyo weliba tallaalada guud ahaanba laga joojiyay tallaalkan isaga ah oo aan la tallaali doonin labada qof ayaa warbixinta waxa ay sheegtay in xaaladooda iminka ay quman tahay oo ay soo kabanayaan ayna tahay waayo aragnimo laga arkay tallaalka markii durbadiiba la bilaabay arrimaha laga arkayo dadka iyagu kohsanaya ama dhibsanaya ama allergiga ku ah tallaalkan ayaa waxa ay yihiin neefto aad u yaraanaysa qofka marka uu neefsanayo dhinaca kale marka la fiiriyo arrimaha laga arkayo inay tahay korkooda oo markaas cuncun uu jiro oo qofku isxoqayo iyo weliba iyadoo dhiiggiisa amaba pressurekiisa uu markaas hoos u dhacayo arrimahaasi oo dhan waxay ahaayeen waayo-aragnimada ay dhaqaatiirtii saynisyahannadu ay arkeen taasina ay keentay in go'aan lagu gaaro dadka allergiga ama kohsiga xoogga la qaba inaan markaas loo dhaweyn cirbadan iyada ah ee tallaalka ee laga fogeeyo
UK marka la fiiriyo guud ahaanba dadaalada ka socda waxa ay tahay siday u dalbadeen guud ahaanba doosaska kala duwan ee tallaalada shirkadaha kala duwan oo ay bilaabeen ilaa iyo 50 isbitaal ayaa lagu bilaabay talaaladii waana la wadayaa sida ay sheegeen iyadoo la siinayo mudnaanta koobaad marka la fiiriyo dadka waayeelka iyo dadka degan guryaha dadka lagu hayo iyo weliba dadka kale khatarta caafimaad qabi kara iyo xanuunada kale iyo dadka qoliyaha caafimaadka hadday yihiin kuwa guryaha dadka waaweyn lagu hayo kuwa ka shaqeeya iyo haddii ay yihiin kuwa isbitaalada kadibna nidaamkaas lagu socon doono ilaa la gaaro da'da 80-aadka 70-aadka 65 iyo wixii ka weyn iyadoo barnaamij loo dejiyay ay ka shaqeynayaan guud ahaanba qolyo loo tababaray horena u tababaraa iyadoo dhawaan la magacaabay wasiir qaabilsanba dhinaca arrimaha horumarinta iyo soo saarinta iyo weliba badiska talaalka UK iyadoo haddaba tallaaladii UK ay ka socdaan ayaa 24 saac ugu dambeeyay wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegeen in UK laga arkay 12,281 ruux oo cudurka qaba iyo weliba 599 ruux oo ah dadka cudurka uu dilay tirada guud ee UK cudurka uu ka dilay waxa ay gaaraysaa 62,632 ruux dhinaca kale marka la fiiriyo qolyaha u ololeeya in tallaalka si siman loo helo dadka jaabkoodu buuran yahay waa adduunyada iyo wadamada kale aan jaabka buuran ee faqriga ah ayaa waxa ay soo saarayeen maalmihii ugu dambeeyaba hadallo iyo markaas barnaamijyo ay ugu sheegayaan dunida oo dhan inay lagama maarmaan tahay inaan la iloobin wadamada soo koraya amaba faqriga ah qolyahan isbahaystay ee lagu magacaabo dhinaca tallaalada dadka ayaa waxa ay ka kooban yihiin ururada ay ka mid ka yihiin Amnesty International, Oxfam iyo weliba Global Justice dhammaantoodna waxa ay sheegeen inay lagama maarmaan tahay dalalka jaabkooda uu buuran yahay amaba taajiriinta ah oo iyagu malaayiin dalbaday doosasa inay lagama maarmaan tahay inaanay iloobin wadamada iyagu soo koraya dhaqaalahooduna aanu fiicnayn arrinkan isaga ayaa waxa uu yahay mid lagu baraarujinayo guud ahaanba dalalka adduunku inay arrintaas ay ka digtoonaadaan ra'iisul wasaaradda Jarmalka Angela Merkel ayaa iyadu toddobaadyo ka hor waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay wadamada ee aadka u liita ee jaabkooda aanu fiicnayn iyo talaalku sida uu ku gaari karayo marka daba la fiiriyo dalalka iyagu horay u maray ee dhinaca warshadaha hore uga maray lacagta haysta adduunyada dadka ku nool tira ahaan marka la fiiriyo waxa ay ka yihiin 14% taas oo macnaheedu uu yahay dadka kale ee jeebkoodu dhexdhexaadka yahay ama uu liitaa inay yihiin dadka ugu badan adduunyada laakiin marka la fiiriyo dalabka iyo gadashada talaalka wadamadaas iyagu 14% adduunka ka ee taajiriinta waxay dalbadeen talaalka boqolkiiba 53 taasoo markaa macnaheedu uu yahay inay balaayiin doosas ay iyagu dalbadeen laakiin aan laga hadlin dadka liita ee jeebkoodu markaas aanu buurayn laakiin si haweeney lagu magacaabo Anna Marriott oo iyadu ka tirsan saraakiisha maamusha Oxfam ayaa waxa ay sheegtay in talaalka aan loo fiiri doonin dal taajira dal jaab dhexe iyo dal faqriya oo la rabo qof kasta in uu gaaro si markaa nolol loo badbaadiyo arrimahan iyaga ayaa waxa ay yihiin kuwa markaas soo baxayay kadib markii ay dhinaca kala muujiyeen shirkadaha dhinaca talaalku in qaarkoodna la ogolaaday qaarna la ogolaanayo laakiin ay dhammaantood ka siman yihiin inay u arkayaan inay guul gaareen xagga nabdoonaanta iyo xagga waxtarka talaaladooda Pfizer iyo BioNTech marka laga yimaado waxa jirta Moderna oo iyaduna Mareykanka ah iyo weliba AstraZeneca iyo Oxford UK iyo weliba Sputnik oo ah wadanka Russia iyo Sinovac oo ah dalka China iyo weliba shirkado kale oo aan la magac dhabin oo la sheegay iyaga laftoodu talaalo inay diyaariyeen haddii haddaba Pfizer iyo BioNTech UK laga ogolaaday iyo weliba Canada ayaa waxaa la filayaa maanta oo khamiisa Mareykankana in laga ogolaado mar haddii hay'adda qaabilsan arrimaha dhinaca cuntooyinka iyo daawadu ay 24 saac ugu dambeeyay xaqiijisay Pfizer iyo BioNTech talaalkooda 95% inuu yahay mid isagu waxtar leh taasoo markaa wadiiqada u sii xaaraysa ama dhabaha in la ogolaado khamiista 10ka oo maalinka maanta dhinaca Mareykanka Moderna waxaa la filayaa 17 sida ay ka dhawaajiyeen laakiin dhinaca kale Russia ayaa waxay leedahay talaalkaygu waxtar ayuu leeyahay waana soo saarnay waana bilownay taas oo ay ka dayriyeen qaar ka tirsan nimankan saynisyahanada ee reer galbeedka oo ay arkayaan in lagu degdegay ee loo baahan yahay in la ilaaliyo laakiin madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa ka dhawaajiyay saynisyahanaduba in la hubiyay shirkaddan Sputnik iyo talaalka dhinaca Russia
AstraZeneca iyo Oxford waxa ay leeyihiin talaalkeenu waxa uu noqonayaa mid gaara meel walba isla markaasina si caadi ah ee loo qaboojin karayo iyadoo weliba qiimuhuna uu yahay mid ka yar marka la fiiriyo shirkadaha kale inta ay siinayaan laakiin waxa ay ka deeriyeen AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford maadaama ay yihiin hal shirkad inaanay suurtagal u ahayn dhammaantoodba adduunka oo dhan inay wada gaaraan laakiin waxay qiyaasayaan waqtiyada ugu horeeya AstraZeneca iyo Oxford boqolkiiba 18 adduunka inay markaas ay gaari karaan laakiin yaadan moogaan dhinaca kale sharikadda lagu magacaabo Sinovac ee iyadu Chinese ayaaba durbadiiba waxay bilowday talaalkeedii ay soo saartay qiimaysay hubisay inuu waxtar leeyahay inay u daabusho waddanka Indonesia oo kamid ah wadamada dadka badan ay degan yihiin dhinaca muslimka waxaa la sheegay in si buuxda dadka loogu talaalayo wadamo kale ayaa codsaday talaalka dalka China oo ay kamid yihiin dalka Brazil dalka Turkiga iyo weliba dalka Chile markii haddaba la fiiriyo guud ahaanba talaalada kala duwan iyo sanad kadib ayaa waxaa loo arkaa waxoogaa naruura in la heli doono iyadoo markaasi la ogaan doono dhammaantood marka la wada ogolaaday adduunka ay ku baahaan ogolaashana ay helaan inay noqon doonto mid waxtarta iyo in kale dhinaca kalena waddanka Bahrain oo kamid ah dalalka gacanka ee bariga dhexe ayaa isaga laftiisa talaalada si markaas si degdeg ah loogu bilaabo dadkooda saas ay arrimuhu isu tarayaan maalinba maalinta ka dambaysa waxaa la arkayaa wadamada qaar ee dunida oo iyagu ogolaanaya kadib markay eegeen oo ka baaraan degeen guud ahaanba waxtarka talaalada kala duwan ee adduunyada guud ahaan adduunka marka la fiiriyo cudurka coronavirus waxa uu saameyn ku yeeshay dad ka badan 68 milyan iyo 500 kun oo ruux dad ku dhow ilaa iyo 40 milyan iyo 200 kunna waa uu ku dhacay oo way ka caafimaadeen laakiin waxaan ka kicin oo markuu ku dhacay cudurka coronavirus u dhintay guud ahaanba dunida dad ka badan 1 milyan iyo 560 kun oo ruux marka haddaba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ah cudurka coronavirus-ka waxaa fududeeya sharikadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliyana guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa sharikadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo weliba iyadoo halkaasi laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan laysaga daabulo alaabooyinka haddaad diraysidii haddii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxaa kaloo uu bulshada u hayaa guud ahaanba taleefanada noocyada kala duwan ee kuwii ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949512877 dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan badhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano baryada eebba aan badinno nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah